casharkan waxa uu ka mid yahay casharada kooraska Creating Professional Stunning Wigs website. Kooraskaas oo lagu baran doono qaabka iyo dariiqyada ugu wanaagsan ee website loo sameeyo iyadoo la marayo dariiqyada fudud. iyadoo lagu sameynayna website-ka loo yaqaano Wigs amba web builder-ka loo yaqaano Wigs. Haddaba kooraskaas waxa lagu baran doonaa qaabka website-yada loo sameeyo iyadoo dariiqyo kooban la mari doono iyo simple steps shayga loo yaqaano drag and drop-ka. sidoo kale qaabka Google-ka loogu daro, qaabka website-kaagii loo publish gareeyo iyo cilmi kale oo fara badan oo la xiriira website samaynta. haddaba cidii u baahan inay warbixin dheeriya ka hesho amba u diyaara kooraskaas waxay la soo xiriiri doontaa numberka WhatsApp-ka ee shaashada hortaada kaaga muuqda. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا لهانتين بكلانتي أبون إيسكسو نقد مركله صاحب بيال عشر كينان مانتا waxaynu ku baran doonaa shaygan la yiraahdo domain. Domain-ku waa maxay? Domain-ku waa shay kasta oo la socdo domain. haddii imika aad maqasho shayga domain la yiraahdo, haddii imika halkan aan ku raado aqoonkafi.com xaga ugu dambaysa maxaa kala socda .com baa kala socota. shayada ay la socdaan inta badan .com, .net, .org waxaasoo dhan waxyaabaha ay la socdaan waxa loo yaqaanaa domain. domain-ku waa mar walba waxa halka dambe kala socda. haddaad imika maqasho .uk oo kale .uk waa domain. sidoo kale .som baa jirta, .so baa jirta baan u jeedaa oo .somaliya u taagan. waxyaabo badan baa jira oo caynkaas oo kala marka dhammaan waxyaabahaasoo dhan waxa la yiraahdaa domains. wadan walba Ethiopia oo kale imika .eto buu leeyahay. Djibouti Djibouti bay leedahay oo DG iyo I bay DG iyo B baa loo soo gaabiyaa baan jeclahay. wadan walba saas oo kale ayuu leeyahay oo la aqoonsada. sidoo kale waxyaabo waxa jira common oo imika kale .net waa common, .com waa common iyaduna, .org waa common iyaduna, space.org waa common iyaduna. waxyaabahaasoo dhan waa common. .government oo kale waxyaabahaasoo dhan .education.government waxaasoo dhan waa common. marka waxyaabahaas la yiraahdaa domain. marka adigu website-kan aad sameynaysid domain caynkeedu qaadanaysa inta badan aad dooran maysid. website-ka sameynaysid waxa dooran doona domain-ka loo qaadaya ma .com ba ma .net ba ma .org ba waxaasoo dhan waxa loo qaadayo waxa dooran doona qofka aad u sameynaysid website-kan. marka qofka website-kan u sameynaysid ayaa ikhtiyaarka iskale amba choose-ka iskale inuu doorto amba inuu qaato. saadaradeed marka doonaysa hadaba inaad domainadii oo qofkii kuu sheegay oo uu kuri imika kale qofkii aan Hega Travel Agency u sameynayay wuxuu igu yiri magaca website-kayga waxaad ka dhigtaa hega.com oo dadku ha ku soo galaan hega.com. xagan new page baad tagaysaa. marka meelaha domain-ka laga iibsado waxa kamid ah domain-ku waa wax la iibsado oo lacag la siisto. marka domain-ka meelaha laga iibsado waxa kamid ah 3 website baa ugu caansan. mar Wigs baad ka iibsan kartaa. Wigs gudaheega ayaad ka iibsan kartaa adigoo marka hore soo sameynay shaygaagan inaad updated ka dhigto oo xagan dashboard-kii marka joogto ayaad oran doontaa upgrade now. haddii kala barkii tiiradan aragnay baad upgrade now oran kartaa. marka halkan baad dooran doontaa balaankaagii lacagta markaad bixiso imika kale 3dan balaan connect domain-kan oo kale haddii aad qaadato, haddii kale aad unlimited qaadato wuxuu ku sameynaa inaad domain-kii marka aad iibsato. marka intaas ayaad sameyn doontaa connect domain. marka haddii aad dooratay oo domain-kii kaliya taa doonayso inaad ku connect garaysato waad bixin doontaa lacagtiisa marka. laakiinse marka doonayso inaad meel kale ka iibsato oo website-kan aad edit garaysatay aad domain-kiisa Wigs hadhow tolo aad tiraahdo I have a domain ood kaliya taa iska bixiso premier blank uu ka qaaday. domain-ka meesha laga soo helo waxa kamid ah GoDaddy meesha la yiraahdo GoDaddy oo website-yada ugu caansan kamid ah. marka waxaad oran doontaa GoDaddy domain search ayaad ku qori doontaa. inta imika halkan ku qoray oo kale ayaad ku qori doontaa kadibna search baad siin doontaa. xaggan ugu sareysa waa kan ku soo dhigay GoDaddy name search-ka. marka isaga ayaa dooran doontaa GoDaddy name search-ka ayaa dooran doontaa insha Allah. markaan doortay bartan buu keenaya marka xagga yar ee search button-ka ayaa waxaad ku qori doontaa nooca doonayso inaad raadiso. marka kale imika waxaan idhi madaxtooyo.com oo kale idhi madaxtooyo.com baan idhi. halkan baan imika dooranaya mar walba magacii ku qoro search. marka search marka siiyo wuu soo raadinaya. marka imika wuxuu igu yiri sorry madaxtooyo.com mistaken
waa la qaatay website-ka la yiraahdo madaxtooyo.com marka caalamka oo dhan iminka YouTube iskama qaadan kartid magaca YouTube iskama qaadan kartid oo rag baa iska leh youtube.com hadaan iraahdo iskama qaadan karayo oo nin baa iska leh oo iibsaday site-kiisa iminka kale waa kan waxaad arkaysaa inuu ku soo saaray YouTube is taken YouTube waa la qaatay laakiin waxa qaataa balaanadan oo kale youtubebook.com youtube rent.com youtubeplan.com youtubehere.com waxaana YouTube qaado buu ku leeyahay laakiin youtube.com waa la haystaa YouTube haddii imkaan idhaa youtube.net oo kale aan qaato de isagana waa la haystaa qoladan YouTube baa xanibtay oo imika markaad website-ka qoladan aad u sameynayso heega la yiraahdo imika kale waxaan soo qaatay waxaan doonayaa inaan qolo sameeyo magacooga la yiraahdo imika kale Damal Hotel waa la haystaa oo shirkadda Damal baa furatay laakiin waxaan doonayaa company la yiraahdo Brambur oo kale company website la yiraahdo Brambur baan doonayaa inaan sameysto marka halkan baan ku qor doonaa brambur.com oo kale brambur.com baan idhi haye waa raadinaynaa waa kan soo saaray yes biguri your domain is available domain-kii markuu noqdo mid available oo magacaaga uu shaqeeyo uu banaan yahay iibsabu kuri oo kaliya ta waxaad siisataa 0.09 waa $1 buu ka yiri domain-ka dhan add to chat baan leeyahay inaan iibsado igu dar marka continue to chat baan leeyahay oo chat-kaagi igu socdo baan leeyahay marka waa kan chat-keenii geynaya marka waa kan your full domain private policy is here marka domain-kaagi waa lacagtii meeshii aad ku bixinaysay iyo wixii uu ku sheegayaa marka sanadkii dhan wuxuu ka siinaya sanadkii dhan $7.09 warbixin buuxda iyo si aad tiraahdo waxaan oo dhan buu ku soo qoraya marka waa kan warbixintii kugu saabsan marka waa kan saasoo kala iibsanaysa marka laakiin se maxaan ka dal lahaa marka ugu horeysa waxaanu halkan u nimid oo macnihii guudaynu halkan u nimid ay ahayd in magacan domain-ka qaabkii aad u raadinayseen meel kale oo laga raadiyay iyaduna ayaa jirta meesha kalena waxa la yiraahdaa Bluehost ayaa la yiraahdaa iyaduna waa mid kamid ah satellite-yada laga iibsado hosting-ka Bluehost baad leedahay Bluehost domain ayaan dooranayaa Bluehost domain waa soo doortay Bluehost domain markaan ku qoray xaga ma gelaya search for domain here aba halkan ba domain iska sii dooranaysaa marka Bluehost domain-ka ayaan gelaya iyadana sidoo kale bartan baad ku qoraysaa laakiin iyadu waxay kaga duwan tahay halkan baad waxaad ka soo dooranaysaa site-kii aad doonaysaa inaad sameyso .space .net .maxay .com .biz .club .com online .site .uk .org wixii oo dhan aad doonaysaa inaad halkan ka soo doonayso marka .com marka tiraahdo waa inaad halkan gelisaa oo kale imika kale Brambur-kaaga waa inaad gelisaa Brambur search baa leeyahay Brambur marka xarfuhu mar walba small bay noqonayaan Brambur kan waa weyn u hayay mar walba xarfuhu waa tole small bay noqonayaan marka marka uu soo tuuray wuxuu ii sheegayaa inuu ii helay iyo inuu ii waayay marka waa kan isaguna wuxuu soo qoray congratulations your domain is available naga iibsado marka doonaysaa inaad iibsato kamar ku tusaaleynayaa add to chat baan leeyahay marka chat-kii igu dar amba meeshii aan iibsanayo kale igu dar baan leeyahay add to chat marka uu igu daray marka waxaan leeyahay waa halkan igu soo qoray Brambur congratulations xagan hoose markaan soo baxay shopping chart meeshii wixii aad ka iibsanaysay website-kan domain purchase iyo private policy oo 1 year labadoodii baan ka wada iibinaa bigudi marka waxaan leeyahay private policy-gu waa in imiko kale aniga ayay iibsaday private policy wax kale ma aha private policy-gu waa tan labaad ee qiimaheedu tahay $11 iyo 88 marka imika aanu markaan iibsado haddii aan private policy-ga lacagta aan bixin waayo $11 iyo 88 qof imika ragan hackeriska ayaa website-kaagan Brambur kale iska soo dhexgalaya kadibna fariin buu ku soo qoraya kolba email-ka website-kaaga waan xanibaya sidan baan oranaya marka si aanay taas ugu dhicin private policy-gana inaad iska iibsataan weydiin jirta haddii aydan lacagta haynin oo aydan awoodin xaga ay dooran doontaan madow oo remove chat bay dooran doontaan marka wuxuu qoranayaa marka hore deyso haddii aad deysan weydo waad ka saarto waa adiga iyo la'aantaada waad kulliba haddaad ka saartid waxba u noqon maysid inkastoo fariimo fara badan lagaaga nexinayo maalin walba loo qoranayo website-kaagii waan xidhaynaa website-kaagii san baan odhanaa oo email-ka isku diiwaangelisay bay arkayaan markaasi kolba kuu soo qorayaan marka xaggan buu kusoo dhigaya markaan doorto maxaan doortay talow bartiyarida waxaan doortay ay ku qornayd joog hay noo soo dhigo bartayre continue ay ku qortay baan doortay continue marka ay halkan soo dhigay xaggan email-kaagii waad gelin doontaa xaggan oo kale email-kaagii waad soo gelin doontaa
xagan waxaad gelin doontaa magacaagii labaad waad xagan gelin doontaa addresskaagii waad gelin doontaa amba numberkaagii ayaad halkan gelin doontaa oo saasoo kale u gelin doontaa haddana addresskaagii labaad ayaad halkan gelin doontaa ood odhan doontaa numberkaygii labaadna waa kan haddana xaggan waddankaagii baad kasoo dhex dooran doontaa oo Soomaaliya Djibouti Kenya inta badan wadamada la aqoonsan yahay baad dooran doontaa postal code haddii aanad lahayn 5 baad iska gelin doontaa 5 ayaad gelin doontaa marka 5 markaad geliso kolba magaaladii aad joogto raacin doontaa muqdisho kale hadaad joogto MOG baad gelinaysaa haddaad hargeysa joogto HRG D baad gelinaysaa haddii aad garowe joogto waxaad gelinaysaa GRW baad gelinaysaa GRW waa inta badan nambarada dawladda hoose ay siiyaan state-ka amba gobolka joogto ayaad halkan kasoo dooranaysaa select state aad leedahay marka state is required select state ayaad dooranaysaa magaalada aad joogto halkan baad gelinaysaa sida muqdisho kale xaggan waxaad gelinaysaa state-ka amba gobolkii numberkaagii ayaad mar labaad ku celinaysaa numberkaagii ayaad mar labaad halkan ku celinaysaa numberkaagii mar labaad ayaad halkan sidoo kale ugu celinaysaa waayahay marka numberkaygii ku celiyay xagan ayaad waxaad gelinaysaa hadaba meesha aad lacagta kusoo bixinaysay mastercard baad seetay PayPal baad seetay marka haddaad Visa card iyo mastercard haystay good hay'adda dhibicda saarto ayaad numberkii mastercard-kaaga aad halkan gelinaysaa marka numberkii mastercard-kaaga halkan geliso waqtigii uu ka dhacay amba expire date-ka ayaad gelin doontaa halkan oo haddana waxaad gelin doontaa PIN-kii mastercard kasta PIN buu leeyahay markaa kadib aad dooran doontaa purchase domainka qaabkaas loo soo helaa wigisna waxaynu baran doonaa qaabkan wigis ugu dhex iibsanayno domainadeena casharka ku xiga tan iyo intaynu suugu iman doono casharka ku xiga waa aniga oo idin leh ismaqal aragti dambe oo xiiso badan